hooyadeed ayaa 30 sano ka qarinaysa sir balse maalintii la soo doonay ayuu adeerkeed hooyadeed qabay uu fashilay sirtaasi. hadda maxay tahay sirtani hooyadan ay ka qarinaysay gabadheeda muddadaasi 30 sanadooda? waa dhacdo ama qiso ay nala soo wadaagtay gabadh ku nool qaaradda Yurub. sheekada gabadhan aynu barnaamijkeena maanta aynu ku daaqaadayna ha yeeshee daawada intayna barnaamijka u guda galin hadda channelkan ku cusub tahayna subscribe saar muuqaalka like ree ku soo dhawaada Alhays Media. كان حنان جري قربك الحاسيدو فرحتي وعليك حدي فرحتي وعليك حدي فرحتي وعليك حدي dhacdadan waa dhacdo cajiib ah oo la wadaagtay gabadh Soomaaliyeed oo hadda ku nool qaaradda Yurub. waxayna ku bilowday magaceeda waxay tiri waxaan ahay bay tiri gabadh lagu magacaabo Xaliimo waxaana ku noolahay mid kamid ah wadamada qaaradda Yurub. waxaan ku noolaa mid kamid ah goobaha dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolada dalka Soomaaliya hadda se waxaan joogaa mid kamid ah wadamada qaaradda Yurub. da'daydu hadda waxay dhaaftay oo ay kor u dhaaftay 28 sanadood. ilaa iyo hadda weligay maan arag aabahay waxaana la isoo koriyay buu yiri adeerkay. aabahay ma adag bay tiri waxaana isoo koriyay adeerkay hooyaday qaba. waxay tiri hooyaday waxay ii sheegtay in aabahay la waayay aniga oo caloosha hooyaday ku jira ama uurkayga ay lahayd sidaasina aabaheed lagu waayay oo aan la garanay meel uu jaan iyo cilib dhigay. adeerkay hooyaday qabay waxa ay u dhashay 5 caruur ah. adeerkay soo koriyay haddana hooyaday qabay mar aabe ayaan oran jiray marna abti maadaama hooyaday ilmaadeer ahaayeen oo ilmaadeer yihiin. aniga markii aan soo weynaaday waxaan dhowr jeer weydiiyay hooyaday oo dhahay aniga aabahay i dhalay aaway meeyay aabahaygii i dhalay aniga hooyo waayo waxaan dareemi jiray bay tiri xanuunka ay aabba la'aantu ay leedahay. balse adeerka isoo koriyay ee marna hooyaday qabay wax xumaata ama weligay kalama aanan kulmin. waxaan ila dhaqmi jiray bay tiri sidii gabar u dhalay oo caruurtiisa kamid ah. markasta oo aan hooyo weydiiyo aabahay waxay ugu jawaabtaa aabaha waa la waayay lamana garanayo meel uu jaan iyo cirib dhigay. aniga xilliga waxaan dareemi jiray bay tiri gabadhani dhibaatada aabe la'aanta ay leedahay sababtoo ah ilmaha hooyaday ay u dhashay adeerkay siday ugu kalsoon yihiin aabahood siday ula ciyaarayaan aniga kalsooni saa'ida iguma jirin in ilmaha siday aabahood kalsooni ugu qabaan oo kale aniga ugama qabin. sidaas daraadeed oo ay tahayna wax walba ima dareensiin jirin adeerkay isaga weligii xumaan kalama aanan kulmin. adeerkay ilmihiisana igama uusan fuquuqi jirin haba yaraatee. Xaliimo hadalkeeda sii wadata ayaa waxay tiri waxaa dhacday markii aan soo gaadhay da'da 15 sanadood in maalin maalmaha kamid ah ay isku dhaceen hooyaday iyo adeerkay. khilaafkooduna uu aad u xumaaday muddana uu socday buuqoodu. arrinka dagaalka hooyo iyo aabahan isoo koriyay oo ah adeerkay waxay ka bilaabatay aniga dartay ayaa la isku dagaalay. aniga ayaa xanuunsaday bay tiri dabeedna hooyo ayaa waxay dareentay adeer in uu xaaladayda caafimaad uu ka cagajiidayo uuna i daryeelaynin sida caruurta uu dhalay oo kale. hooyo iyo adeer ayaa buuq badan kadib arrinkoodu wuxuu ku dhawaaday inay isfuraan. adeer ayaa ku andacooday aniga gabadhaada weligay inaanan dhalay ayaa u matali jiray weligay gabadhaada inaan dhalay oo kale ayaan u matali jiray ma dareensiin jirin weligayna maan dareensiin inaanan ahayn aabaheed balse hadda ha igu khasbin aniga inaan gabadhaada u noqdo aabe. Xaliimo hadalkeeda sii wadaya waxay tiri markii xaaladda adeer iyo hooyo ay xumaatay xaalku xitaa waxa uu gaadhay furniin. waxaa soo dhex galay faamiliga maadaama ilmaadeer yihiin adeer iyo hooyo. waxaa sidaas ku xalliyay faamiliga
oo soo kala dhex galay arrinkooda. mushkiladda ugu daran ee haysata waxa weeye bay tiri aniga aabbahay abtirsiyihiisa ma aqaano, waxaana ku abtirsadaa adeerka i dhalay. markaan hooyo wax ka weydiiyo arrinka aabe waxay ugu jawaabtaa oo ay dhahdaa aabbaha waa la waayay, aqoon dheerna umaan lahayn, wayna iska kay dhaafisaa, mana jeclaysato inay arrinka aabbahay ay wax iiga sheegto. xaliimo oo hadalkeeda sii wadata ayaa waxay tidhi waxaan joognaba aniga waan weynaaday oo waan koray, waddankii waan ka soo guurnay, waxaanu nimi qurbaha gaar ahaan qaaradda Yurub oo aan hadda ku noolahay. waxaan dhibaatada iyo dhanka faquuqa ah aan dareemaba waxaa dhacday in maalin uu isoo doontay wiil ayaa waxay soo doontay bay tiri wiil faamiligiisa uu isaga ka dhashay ay dhaheen gabadhan aabbaheed rasmiga ah ee dhalay aaway, ilaan Soomaali ayaan nahay, waan isnaqaanaa. markii dambe waxay ogaadeen inaan aniga aabbe lahayn, ninkan aan ku abtirsanayana uusan ahayn aabbahayga rasmiga ah. xaliimo qisadeeda sii wada ayaa waxay tidhi raggii isoo doontay waxay ogaadeen aabbahay aan magaciisan wato inaanu ahayn aabbahaygii dhalay ee uu yahay adeerkay hooyaday qaba oo aan magaciisa aan wato. waxayna ogaadeen inaan anigu aanan aabbe lahayn. guurkaasi iyo meherkaasi sidaas ayuu iga fashilmay oo waa lagu kala kacay bay tiri. waxayna dhaheen gabadh aan cid dhashay la aqoon wiilkayaga ku darsan mayno. sidaasi ayaa lagu kala tegay oo lagu kala kacay. muddo kadib waxaan xiriir wada yeelanay wiil kale oo aad u wanaagsan bay tiri xaliimo, sidoo kale mutacallin ah. aad ayaana isku dhexgalnay, waana wiil kaale araga oo aan isleeyahay maanta haddii aan qisadayda dhabta ah u sheego inaan aabbe aanan lahayn xitaa igu qaadan karo uu igu yeeli karo oo aanan igu diidayn. wiilkii markii aan dhowr sano xidhiir aan wada lahayn ayuu guur ii soo bandhigtay. hooyo ayaa u keenay una sheegay arrintayda, laakiin hooyo waxa ay baratay nin caraba bay tiri oo waddankaasi nagula nool. waxay tiri hooyaday waxay rabtaa inaan guursado ninkaasi carabka ah. ninkaasi carabka ah dadka Soomaaliyeed ma kala gurguro. ninkii carabta ahaa ayaa ahay hooyaday ku dhahday gabadhaada waan ka helay. maalin ayuu yimi ninkaasi carabka ah, waxa uu arkay aniga, kadibna hooyadii ayuu ku yidhi waan ka helay gabadhaada inaad heshiiso ayaan rabaa ayuu ku yidhi. hooyaday waxay soo bandhigtay inaan guursado ninkaasi carabka ah. aniga waan ka diiday. waxaan dhahay aniga wiil Soomaali ah ila dhaqan ah ayaan doonayaa bay tiri. hooyo ma rabo nin ajnabi ah inaan guursado, waayo anigu ma ihi carab. waxaan doonayaa wiil gayaankayga ah oo Soomaaliyeed oo fahmaya dhaqankayga ayaan doonayaa inaan guursado, mana rabo inaan guursado nin carab ah oo maalintuu ku yimi ku yiri waxaan ka helay gabadhaada. hooyo waxay dhahday bay tiri hooyo sababta aan kugu soo bandhigayo inaad guursato ninkaasi ajnabiga ee carabka ah waxaan rabaa inaad ila fahanto, sababtoo ah ninkan ku dhihi maayo aaway aabbaha. macnaha aan kugu soo bandhigayo inaa Soomaali uun tahay ayuunbuu ogyahay, laakiin inaa aabbe la'aanaad tahay ma ogaanayo. laakiin ninka aad xidhiirka la leedahay ee Soomaaliga waxa uu rabaa aabbahaaga rasmiga. haddii aad ka qarisana waa uu ogaanayaa. markaa ninka carabka kuma ogaanayo inaa aabbe la'aanaad tahay. xaliimo qisadeeda noo sii wada ayaa waxay tidhi hadalkaa markii ka soo yeedhay hooyaday ayaan dhahay hooyo aniga maanta waxaan ahay qof 30 sano madaxa la galay.
waxaan maanta rabaa inaad ii sheegto waxa aad iga qarinayso iyo qisadayda xaqiiqada ah oo aadan waxba iga qarin. aaway aabbahay i dhalay? meeyey aabbahaygan i dhalay ee xaqiiqda ah? aabbaha haddii la waayey markii aan caloosha ku jiray, dad ayuu leeyahay, qabiil ayuu leeyahay. aaway aniga aabbe? ma aabbe madahi miyaa? aniga maxaaraan ayaan ku dhashay? xaggay wax ka khaldan yihiin? hooyo runta ii sheeg. intaasi ayaan ku idhi bay tiri hooyaday. hooyaday markay hadalka afkayga ka maqashay oo bishmahayga ay ka soo baxeen, waxaa ka soo daatay ilmo iyo oohin aada u fara badan. waa inooysi oohin dheer kadib, hooyaday waxay igu jawaabtay aniga oo dartaa dhib badan u soo maray, adiga dartaana aan faamligayga u kala go'ay, adiga dartaana faamligayaga aan u kala go'nay, inaan maanta i tiraahdo hooyo maxaaraan ayaad igu dhashay ma aysan ahayn. laakiin maanta xaqiiqada dhabtaa waxba kaa qarin maayo haba yaraatee. waan kuu sheegayaa si kastoo ay wax u dhaceen, bilow ilaa dhammaad. xaliimo qisadeeda sii wada ayaa waxay tidhi, hooyo oo ii bilowday qisadayda iyo meesha aabbahay u ka dhacay, ayaa waxay tidhi, hooyo adiga meher xalaala ayaad ku dhalatay, laakiin maadaama adiga aabbihii ku dhalay lagaa qariyey inaan uur u leeyahay sababo jiro awgeed, layguna qasbay haddaan u sheego inaan uur u leeyahay adiga aabbaha adiga aabbaha ay dilayaan, faamigayga haddaan u sheego inaan uur u leeyahay ninkaasi, waayo aabbaha waa ay dili lahaayeen, qudha ayayna ka jari lahaayeen. hooyo xalaal ayaa tahay, xalaal ayaana kugu dhalay. aabbaha si hoose ayaanu isku guursanay, sababtoo ah bay tidhi aabbaha waxau ka soo jeeday qabiilada la haybsooco. markii uurkaaga igu soo baxay, hooyaday ayaa ogaatay anigoo ah adiga ayayda, waxaana u sheegay inaan cidda aan uurka u leeyahay oo ahaa aabbaha. hooyaday iyo dhammaan faamligayga oo dhan markii arrinkii ay maqleen aad ayay uga xumaadeen. maalin iyo habeen waa la jirdili jiray, waxaan la isku dayi jiray mararka qaar in ilmaha caloosheeda ku jira layga soo tuuro, laakiin si kastoo lay dili jiray oo lay ciqaabi jiray oo silsilad laygu xidhi jiray, mar walba waxaan jeclaan jiray inaan adduunka kugu arko oo aan ku dhalo. maadaama aan aniga xalaal kugu dhalay oo aan waddo khaldan aanan kugu dhalin. xaliimo qisada noo sii wada ayaa waxay tidhi, aabbaha waxaana wacad laygu maray inaanan u sheegin inaan uur u leeyahay. haddii aan u sheegona nafta la dhaafin doono, lana dili doono. anigana sidaas daraaddeed ayaan uga qariyey aabbaha oo in la dilo ayaan ka baqay. isagana mar walba waxa uu odhan jiray, haddaan reerkiina kaa soo doonto kow ayaa laygaga siinayaa oo waa lay dilayaa. walaalay macaanay, guurkeenna waa inoo sir ha inoo ahaado inta aan waddankan oo dhan aan iskaga tegayno oo aan tegayno meel aan xor nahay, tegayno meel amnigeennu uu sugan yahay. kadib aabbahay iyo hooyaday waxay igu hanjabeen, iguna wargeliyeen inaan uurkan aanan u sheegin aabbaha. sidii ayaan uga qariyey aniga oo naftiisa u baqaya. kabacdi aniga uurka leh waa lay dayriyey, waa lay ciqaabay, waa lay dilay. waxaana i wadatay bay tiri habaryartay oo i kaxaysatay
oo aan la noolaa sidaasna igu guurisay wiilkeeda oo adiga adeerka ah si laygu ceeb qariyo waxaana lay guuriyey adiga adeerka oo hadday qabo 5 caruurtaan u dhalay ahna aabbahaaga rasmiga ee magaca kugu qoran baasaboorka ID-yada iyo wax walba kuna ku soo koriyey kuuna galay booskii aabbaha inta hooyaday oo ii sheekaynaysay intaasoo ay hooyaday ii sheekaynaysay bay tiri aad ayay oynaysay hooyaday ilmada ayaa ka daadanaysay waxayna igu dhahday sidaas ayaa laygu daray adeerka oo laygu meheriyey oo laygu guuriyey adeerka waa aabbaha markaa muddo joognayna hooyo qurbaha ayaa iska soo aadnay ka igu daran hooyo waxa weeye bay tiri aabbaha ilaa maanta meel uu ku nool yahay ma garanayo markii adeerka lay guuriyeyna waxaa layga geeyey gobolkii aan ku noolaa maahee gobol kale gobolkaan ku noolaa maahee gobol kale ayaa lay geeyey markii laygu ogaaday xaaladda uurkaagana aad ayaa lay garaacay aad ayaa lay dilay oo meeshiiba iyo magaaladii aan ku noolaa oo dhanna waa layga haajiriyey markii aan adeerkaa isguursanay haddana aabbaha meel uu adduunka kaga nool yahay ma garanayo sidoo kalena aabbaha dadkiisii si wacan uma sii aqoon aniga waqtigaa gabar yar ayaan ahaa hadda carabka waxaan kuula rabo ninkan carabka inaad guursato waxay tahay inaanad ku dareemin doonin aabbe la-aan taas la ajligeed ayaan kuula doonayaa bay tiri ninkan carabka ah inaanad dareemin aabbe la-aan xalan waxay dhahay hooyaday hooyo waan ku dareemayaa dhibaatada aad ila soo martay inaa aniga dartay faquuq iyo dhibaato u tiro badan aan la malaysan karin waxaasoo dhiba aad ila soo martay waan dareemi karayaa aniga dartay ayaa lay kaa deeriyey aniga dartay ayaa lay kaa faquuqay laakiin waxaan kaa codsanayaa hooyo bay tiri xaliimo iyadoo hor fadhida inaad ninka carabka aad iga dayso aana ninka Soomaaliga ah ee jeclahay guursado oo aan runta u sheego isaga laakiin hooyo waxay soo taagan tahay soo istaagtay wiilka Soomaaliya haddaan guursanayo inaanan waxba u sheegin oo aan ka qariyo oo aan u sheego inuu dhalay ninkan hadda adeerkaya maadaama aan aniga abtirsiintiisa haysto aana runta ka qariyo iyo haddii kale aanan ninka carabka aan guursado sigaa waxba aanan ku ogaanayn oo waayo waa nin caraba hooyaday labadaasi shuruudood ayay hordhigtay ama ninkan carabka guurso ninkan carabka ayaan aabbaha iyo wixii ku dhalay dadkiisa aan midna ogaanayn oo waa nin carab waa ajnabiya haddii aad wiilka aad jeceshahay aad doonayso inaad guursatona waa inaad wax walba oo xaqiiqada dhabta aad ka qarisaa gabar yahay labadaasi mid dooro ayay igu tiri hooyaday oo ilmadu ay ka qobanayso aadna u ooyeysa markaa waxay dhahday waxaan rabaa gabadhan in talo la siiyo oo aad talo isiisaan walalahayga Soomaaliyeed ma waxaan guursadaa carabka hooyaday ila rabto maadaama abtirsiinyo waxba ka aqoon waxa ay dhalayna uusan waxba ka aqoon mise waxaan guursadaa wiilkan Soomaaliyeed ee aan anigu wato ee aan jeclahay ee Soomaaliga waxaan u sheegaa sirta ay hooyaday iyo aniga naga dhaxaysa waxaan u sheegaa qabiilka aan ka soo jeedo inay yihiin qabiilada la yaso ee la haybsooco mise waan ka qariyaa bay tiri oo sidaasi ayaan ku guursadaa anigoo u sheegaya aabbahay inuu yahay adeerkaygan hooyaday qaba waayo magaciisa
ayaa wax walba igu qoran iyo dhalashada ID-ga. Yurubna waan ku noolahay. Fadlan talo isiiya. waxaad siisaan talo aad siin lahaydeen qof walaasha. labadaasi daran mid dooro ayaan ku jiraa bay tiri.